magaalada Buuhoodle waxaa maanta ka dhacay mudaharaad aad u ballaaran oo si weyn loogu cambaareeyay dagaalada ka soconaya deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. sidoo kale mudaharaadkan waxaa lagu taageeray madaxda sare ee Puntland waxaana shacabka ka qayb galay ay sheegeen inay taageersan yihiin madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisaba. mudaharaadkan sidoo kale waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah oqaasha iyo waxgaradka deegaanka Buuhoodle. dadkii ka qayb galay mudaharaadkan waxay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi in ciidamadiisa kala baxo deegaanada Sool sana indhalaanta dagaalka iyo weerarka indhalaanta baanu qabanay mudaharaadkan aanu qabanay waanu xambaaraynaa sheegaanta iyo madaxweynaha ninka sheeganaya aanu naqaano anagu hadda u naqaano qabla dagaal inuu yahay markii hore uu ahaa askari buu ahaa askari wuxuu yaqaanay wax dilan wax kale ma yaqaano marka in madaxweyne maanta uu sharaxo doorninka ama uu sharaxo maanta intaas xaraan bay ahayd waxa dadkii siyaasiyiinta maamul baatiin oo dad Soomaaliyeed baatiin oo wax kala garanayo ummadda isu soo dhaweeya oo ummadda gasbada inaan madaxweyne ka dhigataan waxaan idinku talinaynaa baarlamaanka iyo shacabka dhamaantood ay sugtaan Muuse Biixi xilka ka qaada Muuse Biixi xilka qaada waxaanu aad uga xunahay oo xambaaraynaa dagaalka lagu qaaday Sool ee lagu haysto iyo Tukaraq dhibaatada ka socota ee ay ka wadaan sheegada Soomaaliland ay ka wadaan baanu xambaaraynaa waanu ka xunahay maaqulin ma yeelayno waqooyi baanu nahay laakiin wax Soomaali la yiraahdo aan isku raacsannahay oo aan ogolahay ma jiro aadan cali xadar adigu waxaad ka mid ahayd cuqaashi in badan taageersanaa wada hadalka Soomaaliland iyo khaatimo maantana Soomaaliland baad maagaysaa maxaa isaga badalaadiga su'aashaas anigu maanta horta su'aal diyaar uma ahayn laakiin runta marka laga sheego waxaa jira qof inuu qasoo qaldan isu yaqaan inuu sax yahay oo isu haysta inuu sax yahay runta markaanu sheegno 6 sano baanu taaganayn oo shaqaynaynay oo khaatimo u shaqaynaynay khaatimona waxay ku dambeysay madaxtooyadii Soomaaliland bay ku dambeysay madaxdeedu ku dambeysay taana waxaanu aqbali karo qaadan karayna ma adeerkay professorka madaxweynaha khaatimo waxaan leenahay wallahi billahi oo tallahi dastuurka hadii la siiyo dastuurka Soomaaliland qaadan maayo ما قالوا أيرو ككاري أيرو ككاري أيرو دتك أجيب كوبان بدأ هو دتك أجيب كوبان دتك أجيب كوبان أيرو إسكت أيرو حاجة يرى قرر كالغوصري مجينه رخاتهم مجينه Soomaaliya 4.5 wax ku qaybsatay afar qabiil iyo barba wax loo qaybsaday dawladii dhaxayna siyaad baray meesha markii ay ka baxday ma jirta qabiil gumaysan karaya qabiil dul fuuli karaya ma jiro dadkana dal la dul fuuli kara ma aha dal wadankooda lagu soo duuli karaya ma aha waa dadkii daraawiish waa dadkii xurmada weyn ku lahaa ummadda Soomaaliyeed waa dadkii gumaysiga ka qaaday Soomaali ka qaaday Ingiriiska la dagaalamay SNM waxay ahayd iyo dadka Muuse Biixi ka soo jeedo maxamiyadii gumaysigii ka soo ku hoos jirtay bay ahaayeen Soomaaliland haddaad maqasho waa dadka u dhashay Sool Sanaag iyo Cayn weeye waa dadkii gumaysigii Ingiriiska wadanka ka saaray iyagu maxamiyad bay ahaayeen taariikhdu wax iska dhigan weeye haddii ay jirto xuduudi waa tii uu dhigay Ingiriisku waxa weeye tagaatimo taala weeye waa tagaatimo taala ee qabaa'iladii ku noolaa waqooyiga Ingiriisku u dhigay mid kale oo meel taala ma jirto haddii aad taadeen yooca wax taala taad ku lunteen weeye waa taari khariif idinku gacmo goday xuduuda soo xira yoocada taga waa taad maanta af libaax aad ku gasheen libaax meel yuurura shaarubadiisa waa taad maanta isugu taagteen waa taad maanta meel awaaja meel aad leedihiin weeyaan waa tacirku idinku bannaan yahay waa taan qof idinkaga soo noqonaynin annaguna haddaanu nahay gobolka Cayn horaynu isu mudannay haddana waxay la tahay waa idin diyaargaraysan yahay waa ka waxaad geysateen Muuse Biixi qura maaha Siiraaya ka horeeyay kii kale ka horeeyay baa jira damaaciga xumaayana casnimo maanta waa la isugu yimi maanta sidii aynu u sinayn baynu dagaalamaynaa wadahaleedina waxa dareerka afarta madaxweynaha ka war أحمد مبارك كذا شكوى بريرك فرماش كذا شكوى بريرك سياد بريرها كوى بريرك عبدولي عبد الحكيم لكوى إنا عبدولي عبد الحكيم وحوايا إنا تمت كيسة دايلة ونكا تاكم بابا تبوغانا شنطير النافت كلا تغيسة كاكات
كلها تجمع نقول المعماية تكيس اللي بدر على السوق يتبع وهاي عبرتها وعن ذلك هذه ذاتك هيك أنتوا خيسوا إلا جاء تجلا يا عاد اللي قلت تجلا اللي هو أبينا اللي هو بري عالم كنت خويه طبعا أنتم من أولنا أنتم من الدجور إلى إلى الناس سنة ريك دجا إلا جاء تجلا هاي واحد كاشان لا لو تلقي ملي سوق جورو قومي ما يجرو تلقي ملي سوق جورو قدما إلى أن تقني لبنا جستدا وقبل لدني مغنى قلب قودي لابو ولقو قدون سلوين أن عدو قرواحي قدقيدو البنت حدو نبدا قوبايي حدي يوقيال قردا لالات شي قردر هادو مرفعني ارقل عن قدال عليني كنت وابال كادين عن قبا بيناي وسوقيا قنت الله ضلب لي لقو قارعاي هدي انقر يا ريري دور قبع الله قادين قد مدوب ياشي هدان قبرع لاقو لينين قرسكا يقول قربوتك يا عيال هدان قبل لاسي عيرين قرسكا يقول انكي هدان ايقاچا كورا عيرين إلا واقدوري هدان ايقالد او عبانين قيقي صدارود هدان قد كلاقو ميرين قرياشا واوين هدان قوشا لاقو فانين الليلي شرشاربا مقالو قوني بانهاي الليلي هرتيبا وانكا قوي قرن قارتيسي دارود الليلي مقالو قبانا وحالي نوالالكي لدري وعابي لدري وقادو لدري دبير درابا انت عليك ماشا كنت لنكا يقانا الليهي نهدو علي نغبحا يدكونا الليهي نهدو علي نغبحا إنا مرض البحانتين وكجرانا داد إسلام هداتي دادكينا صورعا انت أخيانك قبحيا ريبوها لو وداياي إنا مرض بدلان بعد بغادر يا المعنى الريال أنا وين الله تشبيو موريستا هداد ما أنت قرأتين وحا الله سعبايا يد البحانتين السردر رايت الدعالات سوعي الله سعود كسا الله يرو مريحان الله يرو وقايل الله يرو دعالات اسماعيل الله يرو السردر وين وأركيسين قالوا يكوكو دوي أرمدي يا صعريسة أرمدي صدق نين أرمى رافض الكيرن وحلا وحي بالش لحظ قيسة شوي وحي شوي الأصحاب بالغدا وعليا إلى ما ينقي عيد الحين مي وطالنا إلى ماذا يبا السيمي الدفاع يا دلك وعنو لنا برتا شوقتنا كنا قلنا وإذن بربرتا لنا وعنو ديار قرابينا هنا وصعدا قاطوا هنا بلنا قدقان قاطوا هنا بلنا يدورنا ماشو كل العاب على غلا وعنو دينا بريانا وإنو تبادلنا مدعوينا كحيانك كريش بدلان قدقان وعنو عمبرياننا وعنو عمبرياننا ولا ساق بنيا وعنو قاطوا بلنا يدور ماشو كل العاب